المؤمن يجب أن لا ييأس أبدا. ولقى هاي سديبن nolosha inaad amal dhigin. Do not lose hope in Allah. weligaa ha quusanin. If you want to give up, you can give up. This is your choice. ha quusan. Never to give up hope in Allah subhanahu wa ta'ala. ha quusanin. لا تيأس. لا تستسلم أبدا. هو لا تستسلم أبدا. I don't ever give up. Don't give up. Don't give up no matter. isdhiibi mar labaad isku day. لا تقنطوا من رحمة الله. تعالى وبركاته كنت وعنا نكسن صاحب يال قفك إنه قوستاهي وحكي لك أنت إنه لشي سدن وديبي ونا الصبري ونا نقضي قف قيرانيا إنه يهي دوقن مروا البنا فاشلة أن وحول بود كوجود جرتيد حاليا با سيدة أدو دونيس إن نقن بس السيد رب سبحانه وتعالى دوني إن ود ربي أسيجا يا كأقوى نفط هذا أسيجا يا كأقوى وحق خير كي بركات في وجرته صدرت ربي كرسونه سبحانه وتعالى دجنان إيوه موج كرسوني أنا وحنسوق هذا وحنسوق هذا كل بدأ يجي صدق قصة أو كلا قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة النبي موسى عليه السلام هي قصة ده إنك اقتراعي سيد الشيغو وطريقان هذا إسكا عيرة عصب لو شيء نالكان إفتينكا وقشقين إلكتريكا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسحيبكي أبو بكر الصديق waxa ay galeen godkii qaar xira kadib markay ka soo jiroodeen maka markay ka soo jiroodeen gaaladii baa soo raastay soo baadi goobtay markay soo gaareen godkii qaar xira afkiisa midkood adoo hoos fiiri lahaa wuxuu arki lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr Siddiq wuxuu yiri nabi Allah haduu midkood hoos soo fiiriyo wuu in arkaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri la tahzan inna Allaha ma'ana همرون هنا والولين إله بنجرين نبي موسى عليه السلام أسيجنا قوم كيسي مركو كلاسوف كذي رر فرعون كلاسوف كذي وسو استاجي بدي سو استاجين وحير هذين قوم كيسي فرعون يعيدن كيسين سو جارين أسيجنا حكيري مايا ربي جاي فريا وضو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي موسى عليه السلام لبدو وحي قابين كالسوري حدافة محيا لرب سبحانه وتعالى بكو كرسوناين عد رب سبحانه وتعالى كو كرسوناتنا وعد ليبانتا توماس اديسون سينا وحال شيغا انو كونو مر قول دريستي markii la weydiiyay qolada saxaafadda wareysanaysa dhahan waxaad ku dadaashay inaad guuleysto kun marna waad guuldareystay wuxuu ku yiri anigu kun mar ma guuldareysan waxaan fahmay oo gartay kun wadooyin oo shaqeyn sadarteed ما أنا قول دريسان نكان الدنيا يساعي دلال بدن قليي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهم سنة وحي ودين رسالة الله سبحانه وتعالى ومد أي عذاب ككبد بعدين تادرتي حقوسا مرنبه حقوسا كلهم مايو وحن قدام عن القاضي ما قدام عن القاضي إنه حلباتها وتأي بلدهايا لكن وحن كلها هاي إلهي سبحانه وتعالى وكأقوك هاي نفط هذا أسيجا أيانا نفط هذا وهبون ونونكسن سيدرتي رب سبحانه وتعالى وحقوك هاي إني كو هبون تهاي إن الشيء مركز كو جوليستو يا إني كو هبون تهالشيء إن هذا مركز عريك هيل أولاد مالك يو حاسسك ونكسن إلهي سبحانه وتعالى أي لو ديستا أي قريب بركله هدي وحلوسيو كشغلنا هذا وحلوسيونا دجنان يا عافماد موجي وينكي دقدقاهي وحبضن بوايا نكا دقدقنا وحبضن بوهلا ان سوشيال ميديا إنك بدن 5 سنة أيام لحفظيها يعني أهم قصدي ذا رنتي وقصة عجيب له لكن إن بدن مدوني ننكشف كيو noloshana sideedaba qofka intuu dhalinyarada yahay waa baal qormay aniga wali noloshayda waa cusub tahay maxaa yeelay miihi oday 50 jira 60 jira 70 jira da'diisana maanta hadii taariikho iyo nolol kale laga weydiiyo wax ka faafaan kara sadarteed kuma dhahayo noloshayda waxay ku tahay cibro qaadasho iyo intii ka tahay laakiin waxa ku sheegayaa ninkii sabraha baasidkiisa hela
hadegdegin hana walaacin hana walbahaarin dadku mar walbay ku dhahaan wareedha waxaan waata guul keeni weyse u sheeg in rabbi subxaana watacaala yahay midka og qof walba waxa u wanaagsan cid walbana naftiisa ka og ilaahi subxaana watacaala waxa uu ina leeyahay waxaad shar u aragtaan baa khayr inkugu jira waxaad khayr u aragtaan baa waxaa dhici karta shar in kugu jirto sidaa darteed liibaanta ilaahi subxaana watacaala baa haya hana degdegin hana daahsan nafteeda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa marka koowaad alla ka cabsiga marka labaadna culimada waxa ay yihiin kuwo in badan laga cilmi qaato khaasatan kuwa cilmi diina bartay sheekheena weyn sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun baa nin dhalinyaro weydiiyey su-aashii waxay ahayd haddii dib lagu celiyo ama haddii mar kale lagu siiyo fursad maxaad qabaneed markaas ku jawaabay cilmigan bara lahaa dhalinyarooy haddii aan tayda ka hadlo in badan oo naga mid ah fursadan haysanaa kolley kama faa'iideysano nafteeda marka kasoo qaado waxaana qofka kolley kugu doqonsan ninkii wax bartaa wuu liibaano wuuna mahadiyaa laakiin ninkaa wax baran mana liibaano mana mahadiyo bal wuu ka shallaayaa sidaa darteed ha shallaayin adigu ee wax baro intaad nooshahay qofka haddii maanta la yiraahdo qof la tali xirfad nuucee ayuu qofkan ku habboon yahay qof markooda waxaan qiimeyn lahaa ama aan qiimeynayaa qofkan wuxuu asugu jecel yahay diinta markii laga soo tago wuxuu adduunyahan jecel yahay ayaan fiiri lahaa laakiin qofka markii la yiraahdo cilmi kula tali waxa ugu horreyn kula tali lahaa horto waa inaad rabbi subxaana watacaala diintiisa barataa rabbigaa barataa waxaad ku caabudaysid cilmiga waa inaad taqaana laakiin dad tiraahdo subxaana watacaala waa iska caabudaya dadku say u caabudaan oo caabudaya kulley maahan arrin wanaagsan laakiin haddii aad rabbigaa si dhaba u caabudid arrin walba khayr ay noqon doontaa ninka yaqaana cilmiga diiniga wuu guulaystaa ninkaan aqoonna wuu khasaaraa هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.